بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إلهي mahadle subxaana wa tacaala ilaahay keligii mahadleh waxaan u mahadnaqayaa marka horeysa shacbiga reer somalilan oo waajibaadkoodii ka saarnaa doorashada gutay ciidamada ammaanka iyo ciidamada qarankaba ee difaaca oo iyaguna cadowgana inaga baaciyey nabadgelyadiina inoo sugay ayaan iyagana aan hambalyeynayaa commissionka iyaguna hawl culus oo baaxad weyn ka soo baxay si wanaagsan oo hufan uga soo baxayna waan hambalyeynayaa dadkii shaqaaqooyin ku dhintayna waan tacsideynayaa ilahay wax ka siiyo doorashadan dhacday horta waxay u tahay siday u dhacday iyo nabadgelyada soomaalida qura maaha guule soomaalidu dhan guul u tahay magaca soomaalida xumaaday oo laynoo yaqaano soomaalidu inay yihiin dad khayr mas-uuliina oo burcad iyo lagu xasuusta teroriis iyo isqarxin iyo uran oo dhan lagu xasuusto ayaa horta maanta at least la ogaan doonaa in jirto dad soomaali ahoo wanaagsan oo doorashooyin gala oo is-ogol oo wax qabsan kara markaa guushaasi waa guul soomaalidu dhan ay ku faani karto innagana si gaara waan ugu faan karnaa sumcadna waynu ka helnay intii arrimuhu socdeyn waxaan aad iyo aad shacabka reer somalilandna uga hambalyeynayaa sidii wanaagsaneeda 21 cosho ee culeysku saarnaa ay islaanta qutrada iibinaysay qutrada iibin kara weyday ardayda iskuul tegi weyday ee kaambeenka foosha xumaa aanu galnay inagu dul qaateen ayaan aad iyo aad iyagana ugu hambalyeynayaa horta doorashadii waa doorashay dimuqraadi ku dhacday waxaana ku dhacday heer hab qabiilba ku dhacday one man one vote laakiin way qabiil ku dhacay qabaa'il baa loo footeeyey looma footeyn yaa wada kala dalka yaa ilaahay ka baqaya kitaab looma footeyn reer loo footeeyey waan hambalyeyn horta anu beeshaydii yaa ii footeyso beeshayda waa hambalyeynayaa inkastoo layla qaybsaday oo in badan la iibsaday haddana intii dumarkii iyo dhalinyartii dhiididay xisbigooda ay ku abtirsamay guddoomiyuhu adkeeye waan hambalyeynayaa qolo kastaba nin xulufo helay nin kaleba horta waxa u qabay qabiilkiibaa yaa footeeyey jeegaantii baana badsatay adoo aragta jeegaanta dhowr reer baa iskugu tegey marka waxaasoo dhan waxaa ka wakiilahaa dadkii garxajiyada keena waa ka wakiilahaa ummadoo kala tagtay oo kale mabda noqotay faamiligu balaadi laynagu soo tuuree lagu sameeyey hodheel maaxoo meel iska cidla ahe la yidhaaho maroodjex balaadi jex ayaa horta ka dhacday marka anaga waxaana saaran maadaama aan shacbiga reer somaliya horena ugu sheegnay ummadda international community aan u sheegnay inaanu natiijada ogolaanno waan ku qasbanna inaan ogolaano haddaanu xisbiga u cudnahay maantana crossroads bay somaliland taagan tahay dhowr jeer baanu dhibaato iyadoo ku jirta aan u soo gurmanay ilaahay subxaana wa tacala saba nooga dhigay carabkayaga maantana halkii oo kale taagan tahay waxaan leenahay dadkan imika durba waddooyinka marmaraya barbaraanaya leh tenshanku aad buu u kacsan yahay in waxay ahayd guusha dee haddaan lagu dhawaaqay in guryahooda la tagaan ba ahayd inay suuqyada lasoo marmaraan ma ahayn inay isdhowraan ba ahayd haddana waxa lenaha la isdhowro celebrationkii waxa inaga daaya xasaasiyad baa kacsan waxaa loo baahan yahay dalkan in tala midaysan laiskula yimaada waxaa loo baahayay in waddankan waddan shaqaynayo sharci shaqaynaya laga dhiga oo laga baxaa 7 sannadood wixii aynu ku jirnay waxaa loo baahan yahay constitutionka ina la eegaa reform lagu sameeyaa heshiiskii khaatumo la dhamaystiraa heshiiskii iyo wadahadalii buuhood leh
la galaa sanaagta bari arrinteeda la galaa dadka la midayaa loo baahan yahay dowlad loo wada dhan yahay oo inclusive ah oo sidii hore u dhacday aan galbeedka hargeysa ku soo ururin haddana ka sii ururin ee ummadda u qaybsanta oo dadkoo dhan ka muuqda oo dadka lagu dooro aqoon afmishaarnimo aan lagu aqoonin in la sameeyaa loo baahan yahay in si degdeg ah aan isku nimaadna loo baahan yahay musabixii madaxweyne ku-xigeenkiisu wixii tala aanu hayno wixii brogram aanu hayno aynaan la qaybsanaan jecel insha allahu tacaala waxaan jecelahay hadduu muuse iyo ku-xigeenkiisu ay sharcigii bisadda qaataan bisadda sharcigeed wuxuu yahay bisadda hilibka heshaa keligeed qaadato indhaas ku qabata loo afkaad hadday la soo noqdaan sidii hore lagu bartay administrationkii ka horeeya kan ee kulmiye ku abtirsanayay oo beelaha somaliland ee hareeraha degani ay ka cawdeen ee jabadaha ka samaysteen haddii wixii la soo celiyo anagu faraan ka qaadnaa laba shaqayn la yeelan mayno haddii ay doonayaan inay sameeyaan dowlad socota oo shaqaysa oon reer ku abtirsiiman oo kulmiye ku abtirsan oo keliya reer somaliland dhan ka muuqdaan oo dad tayo leh oo mafris fadhiya mafris aan fadhiisanee markay shaqadooda ka soo baxaan buwaagta akhrisanaya oo adduunka la soconaya hadday at every level haddaa la keenayo gacan baan ka siinaa la shaqeynayna mucaaradda waan ka joojinaa garbahaan ka gelina haddii la yidhaho waxaa loo baahan yahay in waxaan political inu kuma jirno political divide ma nahayn oo siyaasad kuma qaybsanin waxaan ku qaybsanay qabaa'il baan u qaybsanahay u qaybsantay doorasho inoo qaybsay waana qabaa'il kala mideeya loo baahan yahay la mideeyo laga taga qabiilka dadka lagu abuuraa entity qaranimo lagu abuuraa loo baahan yahay haddaynu halka hore ka miisno waxaa dhici doonta dhibaato weyn soomaalina geedkaa gaari mayso wayna wada hadlay soomaaliya soo geliyaa derdergeliyaa waa in doorashooyinka local councilka ama waxaa tahaan dowladaha hoose iyo wakiilada iyo guurto intuba unconstitutional bahayd kordhiskoodu sharci ma ahayn in dib loo eegaa weeye dalkan wuxuu u baahan yahay nadiif in la nadiifiyo u baahan yahay in institutionska bilaa sharciga ku fadhiya 12 sano 20 sano waxa weeyaan ka wada tashanaa sidii meesha uga bixi lahayn waa in wixii aan sameysano dib loo eegaa intii aan 26 sanado maxay naga xumaadeen maxay u socon weynay waa in dalkan si dhaqada lagu abuuro investment loo gashan lahaa waa in hawsheeda galaa dhalinyarteena shaqo loo abuuro wadku dhaqaalaha keeno horumar keeno waa la keeno haddaan la bedelin dhaqankii hore la bedelin waxa weeye waqtigan iska luminayna markaas state uma socono nation building uma socono anagu de waxa weeye haddaan nahay cudnahay waxaa la yidhi berigeen ay dagaalamayeen beershiyanka iyo roman empireku suuratu rome markay soo degto ogti waxay u helisay musu ku helinayay romaniaska beershiyanku waxay dabkay caabudi jireen marka anagu markay noo noqoto kulmiye wadani kulmiye isku ahli kitaab aan isku nahay wadanna wuxuu hadda Soomaali weyn marka guusha waan la leenahay waa in qalabta Rome suuradii oo kala weey shaadan waa marka anagu guusha Somalilanderska waa la qaybsanaynaa mar haddaynu jabinay xisbigii platformkiisa aynu gelin xog ku socdo iyo jihad u socdo waxaan leenahay islaamaha ka soo qaadanaya London South Hall hagbad way iska dhamaanaysaa ingiriiska urursan jirteen dalkiina iska xumeena baa leenahay hagbad kan baa dal leeyahay baa leenahay kan ayaa dalkiina way raga facebooka ka soo
sharciga way qaban doonaa waan dilis galeen doonaa kuwa hadda wadda kala joogtana waan iska ashkateen doonaa hadday qaawayna halkan ma ka timaado qaban sharciga qaban dibadda tagteen dadkii kale oo dhan Soomaaliya waxay ka keeneen achievement barnaamij sharci ka keeneen waxbarasho ka keeneen intaasoo PhD baa jirta waxa ma idkorsan barnaamij sharci halkaas qabyaalad ku haysa maqaaxi qolo malihii London oo laga cunteen karo idaga dadka ugu horeeyay marka ka joojiya dadka reer Somaliland isku nasiibka ah biyaha haysan in tacliinta haysan in caafimaadka haysan in caasimadooda gudaafada tahay in wax nagu tartaan moojaane inaad reer Facebook la idinka maadsado oo magacay ku xirtaan xale ceebtiin aqrisada Soomaaliland way hor u socotaa in gala eegna maahan we have to look forward sida wadakan uga saar lahayn dheeriga aynu institution adag u dhisi lahayn waan qabnaa guushana waxa leen Ilaahay subhanahu wa ta'ala guul waarta Ilaahay nooga yeesho mid horumar noo keenayo noo yeesho mid dadkeeda midaysan noo Ilaahay ka yeesho mid af miisaarinta naga xakamaysan naga yeesho mid bees cusub samaysa Ilaahay naga yeesho subhanahu wa ta'ala waxa leen hambaliyo reer Soomaaliland guush Ilaahay nabad ilaahay subhanahu wa ta'ala salaamu alaykum. gudoomiye magacayga